kubadda cagta Liverpool ayaa ku guuleysatay koobka FA Cup-ka kadib markii ay Real kaga badisay Chelsea ciyaar socotay 120 daqiiqadood oo gool la'aan ay ku dhamaatay. ciyaartan oo socotay 120 daqiiqadood ay labada kooxood si adag u dagaalameen waxaana fursadaha badan iska qasaarisay Liverpool oo laba jeer birta qaraacday ka hor inta aan dhamaanin waqtiga caadiga ah ee ciyaarta. Liverpool ayaa ku bilaawatay si dardar lah waxaana 30 daqiiqo ee ugu horeeyay dhowr jeer ku dhawaadeen inay shabaqa Liverpool soo taabtaan hase yeeshee goolhaye Mendy ayaa ahaa xidigii Chelsea ee cunaha ka qabtay Liverpool. qaybtii koowaad ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay barbardhac eber markii la isku soo noqday qaybtii labaad ayuu Marcos Alonso birta ku qaraacay gool loo filanayay kadib markii Liverpool uu kubad laag xor ah ka soo qaaday dhinaca midig. Luis Diaz ayaa nasiibka ka xumaaday waxaana qaybtii labaad birta kaga dhacday kubadda uu dhaafiyay goolhaye Mendy ayadoo sidoo kale dhowr jeer oo kubadda uu soo jaray goolka dhinaca mariyay. waxaa sidoo kale kubadda uu goolka hortiisa ka helay Diogo Jota uu ka qabtay lugta bidix taasoo kaliya u baahneed inuu shaqo ku leexiyo maadaama aan u soo dhaweyn goolhayu balse nasiib darro birta ayay kaga dhacday. 30 daqiiqadood oo dheeri oo lagu daray ciyaarta ayaa sidoo kale ku soo dhamaatay barbardhac gool la'aan ah oo labada kooxood ka faa'iideysan waayeen fursadoodii waxaana la dhigay reegoolayaal ayadoo sidaan oo kale bishii February ayna soo dhaafnay ciyaar socotay 120 daqiiqadood ay reegoolayaal isla gaareen labada kooxood finaalkii koobka Carabao taas oo ay Liverpool ugu dambeyn ku guuleysatay. Chelsea ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee sanad gudaheeda ay hal koox ka wada qaado Carling Cup iyo FA Cup waxaana sidoo kale ku dhacday Middlesbrough sanadkii 1997. waxa kale oo Chelsea noqotay kooxdii ugu horeysay ee 3 finaal oo FA Cup guul dareysatay waxaana labadii xilli ciyaareed u dambeysay koob ka qaaday Leicester City iyo Arsenal. Caceres Blaketa kabtanka kooxda Chelsea ayaa ka qasaaray rigooradii labaad ee ciyaarta hase yeeshee Mendy ayaa la baxsaday oo si damaanay ka qabtay rigooradii shanaad oo ay dhalin lahaayeen Liverpool koobka ku dabaaldegi lahayd. Liverpool ayaa rigoorayaashii la dhigay waxay ku guuleysatay 6-5 ayadoo goolka guushan u dhaliyay daafaca midig ee wadanka Gariiga Tsimikas oo noqday geesiga cusub ee Liverpool. kooxda Liverpool ayaa xilli ciyaareedkan ku wada guuleysatay FA Cup-kii Carling Cup-ka waxaana hadda ay ku tartamayaan Champions League oo ay finaalka wada ciyaari doonaan kooxda Real Madrid ayadoo horyaalka Premier League ay 3 dhibcood ka dambeeyaan kooxda Man City ay ku duceysanayso in laga badiyo si ay horyaalka ugu guuleysan karaan.